Intii lagu guda jiray burburinta khilaafada Islaamka, waxaa barbar socday sidii loo qaybsan lahaa hambadii ay dowladdii Cusmaaniyiintu ka tagtay. Waa bilowgii gumeysiga ee dhulka Muslimiinta. Waxay ahayd wareeg cusub oo ka mid ah dagaaladii Masiixiyiinta ee xiriirka ahaa. Edmund Allenby ayaa yidhi 1918 markii ciidamadii Ingiriisku galeen magaalada barakeysan ee Qudus hadalkiisii caanka ahaa "Hadda ayuu dhammaaday dagaalkii Masiixiyiintu." Genaraal Henry Joseph oo hogaaminayay ciidamadii Faransiiska ee qabsaday dhulka Shaam ayaa isaguna yidhi "Kac Salaaxudiin waan soo noqonay," isaga oo qabriga Salaaxudiin haraatinaya. Inaan maanta halkan joognaa waxay sheegaysaa in Lanqeyrtii ay ka adkaatay bishii. Wuxuu u jeeday in Masiixiyiintii uu Salaaxudiin ka xoreeyay Shaam 700 oo sano ku dhowaad ka hor ay maanta ka adkaadeen Muslimiintii. In la qabsado wadamada Muslimiintu waxay ahayd arrin ay ku taamayeen reer Yurub kana shaqaynayeen muddada dheer ee 7 qarni gaadhaysa. Falastiin in la qabsado oo laga saaro dowladdii Suldaan Cabdixamiid ee ka hortaagnay reer galbeedka waxay ahayd mid la filayay. Arrinka yaabka lihi wuxuu noqday in 4 meelood oo 3 dalool ciidankii Ingiriiska ee Genaraal Allenby ee qabsaday Falastiin iyo Qudus 1917 ay ahaayeen Muslimiin, madaxna ka ahaa Amiir Faysal ibn Xuseen. Duulaankii reer galbeedka ee wadamada Muslimiintu wuxuu soo maray 2 marxaladood. Qaybta hore waxay ahayd in la hareereeyo wadamada Muslimiinta iyo qaybta labaad oo ahayd qaybinta dhulka Muslimiinta, taasoo soo bilaabantay 1794 ilaa 1918 oo ay qayb ka ahaayeen ballanqaadkii Yuhuudda ee dhulka Falastiin. Gumeysiga ciidan waxaa barbar socday mid fikradood oo sheeganayay in reer galbeedku u socdaan keenida ilbaxnimo iyo horumar si ay u macneeyaan joogitaankooda dhulka Muslimiinta. Isticmaalku wuxuu kaloo la yimid in meesha laga saaro diinta iyo afka Carabiga maadaama ay ka turjumayeen dhaqankii iyo aqoontii Muslimiinta. Si loo dooriyo wuxuu soo maray waxay ugu yeedheen tacliinta casriga ah. Wuxuu furay meelo waxbarasho, wuxuuna dejiyay hab waxbarasho oo cusub. Wuxuu kaloo aasaasay machadyo shisheeye, wuxuuna soo saaray fac cusub oo qaba aragtidiisa, kuwaas ayuuna u dhiibay talada iyo hogaankii wadamada Muslimiinta. Meelihii ugu horeeyay ee uu ka weeraray waxay ahaayeen wax iska celinta iyo jihaadka. Qaababka uu marayna waxaa ka mid ahaa burburinta fahamkii laga haystay Islaamka iyo been ka sheegidiisa, iyo in dacaayad lagu furo jihaadka si meesha looga saaro ama loo yareeyo muhiimadiisa. Iyo midda labaad oo ah in lagu dhiirado diinta, la weeraro tiirarkeeda, laguna tilmaamo inay dib u dhac u keentay dadka Muslimiinta ah. Gumeysigii Ingiriisku wuxuu ahaa isticmaalkii ugu xumaa caalamka Islaamka, waayo wuu ka xariifsanaa kana siyaasad fiicnaa reer Yurubkii. Meelihii ugu xumaa ee uu qabsado waxaa ka mid ahaa Hindiya iyo Masar. Taasi waxay fursad u siisay inuu 100,000 oo qof oo dowladahaas ka tirsan u adeegsado dagaaladii koowaad iyo labaad ee adduunka si uu u baabi'iyo khilaafada. Wuxuuna isticmaalay isla dadkeedii isagoo adeegsanayay mahmaahdii ahayd "Lafageri iyaga ayaa la isku jabiyaa." Wuxuu abaabulay Muslimiintii Carbeed si ay ula dagaalamaan walaalahoodii Turkida ahaa, isagoo u sheegay inay dhisan doonaan dowlad Carbeed ama khilaafo Carbeed. Markii Turkidii la saaray khilaafo la siiyaha joogtay, waxaa kala qaybsaday Faransiis iyo Ingiriis. Ingiriisku isaga ayaa isku dubariday oo xorriyo siiyay hay'adihii gaalaysiinta, isagoo ku ilaalinayay inay danahooda ku fushadaan dhulka Muslimiinta ee uu ka talinayay. Ingiriisku isaga ayaa dumiyay dowladdii Islaamka ee Hindiya, isaga ayaa ku beeray dowladda Yuhuudda dhulka Falastiin ilaa uu ku wareejiyay Yuhuudda dhulkii barakeysnaa markii uu kasii baxayay. Dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka waxaa dhammaaday wejigii hore ee gumeysiga ee ku socday xoogga iyo muquuniska. Gumeysigu wuxuu bedeshay dirays, wuxuu bixiyay tuutihii ciidanka, wuxuuna xidhay suudh caadi ah. Wuxuu bilaabay wejigii labaad ee ahaa mid dhaqaale, aqoon iyo siyaasadeed. Waxay sheegteen in ay kor u qaadayaan heerka ilbaxnimo ee dadka. Wax kheyr ah oo laga arkayna ma aysan jirin ilaa iyo ay dadkii ay gumeysanayeen ay waayeen raganimadoodii iyo dadnimadoodii oo keliya. Wuxuu yidhi Ibn Khaldun, weligeed qofkii laga adkaadaa wuxuu jecel yahay ku dayashada qofkii ka adkaaday. Gunti iyo gunaanadkii, aqoonta, siyaasadda iyo hogaamintu waa meelaha ugu horeeyay uu abbaaray isticmaalkii reer Yurub. Inkasta oo uu isticmaalkii ka kacay dhulkeenii, waxaa ka tegay muuqaalkii ninka cad, laakiin waxaa weli yaala xeerarkiisii, dhaqankiisii siyaasadeed iyo ujeedkii uu markii horeba keenay.